xuska maalinta haweenka 8 Maars ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay marwada madaxweynaha Koonfur Galbeed gudoomiyaha haweenka gobolka Baayo degmada Baydhabo wasiirada Koonfur Galbeed xildhibaano ka socda aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo hooyooyinka 10 xaafadood ee magaalada Baydhabo Xawso Kor Cali gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo ayaa ugu horeyn ka sheekeeyay muhiimadda maalintan Shamsa Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iyaduna goobta ka hadashay ayaa iyaduna waxay hambalyo u dirtay haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo maalinta munaasabadda 8 Maars haweenweynaha adduunka oo dhan waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Koonfur Galbeed hambalyo kaas ayaan u dirayaa Zamzam Mahad Cabdiraxmaan marwada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo munaasabadda goobjoog ka ahayd ayaa gabagabadii goobta hadallo ka jeedisay ومسكحيا من يوليا مركزين كشخي من كو أول برنا كو حول برنا كو أهل برنا كو كرت برنا كو نرجينا ما لا رايكو بارسنا جبركلت شكر إسماعيل أحمد صومالي كيبل مقالة بيدبا